كاتشاتي إلهي كبيجا هكاديغو قبشنا كديرو كذب ربنا نقو يقع الكهير الشدا الله يعزك محمد سعيد بك فنانك وطني قد نبتها ديكيس يدوحي قضية سومالان أعطي محمد سعيد بك نولو محمد وبقرك عدك جيجا الصومالي ده انت أفكا الصومالي كو هذا الشعب ولا حميستي وفنان وأبوان ما شاء الله تبارك الله تدكاسان نقدر الشيء هرقيس هويقي فنكوي ولا ليال horta waxaan si kash yalaaba u soo dhaweynayaa si kal yalaaba waxaan u soo dhaweynayaa xidigaha geeska oo dhayda ka cadeeyay qadiyadooda in ay yihiin Somalilander asalayna yihiin ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa hambalyo baan leeyahay guul iyo gobonimo waxa kale oo aan aad iyo aad u soo dhaweynayaa Maxamed Saciid Biike oo ah muwaadin dhabah oo geesi dhalay inuu xidigii geeska ku soo noqday sababtu markii hore Maxamed Saciid Biike xidigaha geeska uga tagayna waxay ahayd markii xidigii geeska la siyaasadeeyay ee la damcay fanaaniinta Soomaaliya iyo xidigaha geeska iyo fanaaniinta Soomaaliland la isku daro horta Maxamed Saciid Biike uga tagay xidigaha geeska markaa hore wadaniyada Soomaaliland buu uga tagay waxa lagu caayi jiray Maxamed Saciid Biike qadiyada Soomaaliland wadaniyadiisa muwaadinimadiisa hal la garab istaago Maxamed Saciid Biike iyo dhammaan fanaaniinta xidigaha geeska walaalayaal xidigaha geesku waxa ay maanta muujiyeen wixii xukuumadda laga rabay ee ururka saxaafadda Soolja laga rabay baa xidigaha geesku ay ku dhaqaaqeen maanta Somaliland halka ay ka dhimatay waxa weeye waa saxaafadda waa Soolja waa ururka saxaafadda weeye oo dhammaan waxa la wixii faqashta ahaayo dhan saxaafadda madaxa banaan noogu soo gabadeen waxa laga rabaa saxaafadda ururka saxaafadda dhalinyarada Soolja ee Somaliland iyaguna mowqifkooda ina cadeeyaan wixii qaranimadeena iyo jiritaankeena iyo madax banaanideena wiiqayana sida xidigaha geeska ay ka saaraan saxaafadda intaan wasaarad iyo xukuumad la gaarin iyaga waajib baa ka saaran qarankan iyo dalkan siday u difaaci lahaayeen sharaftiisa qadiyadiisa iyo madax banaanidiisa maanta inamada yarraay ee Soolja ka hawlgelayay baa waxay u shaqeynayaan warbaahintii walaweynta iyo qadaadweynta oo la inoogu soo diraya walaalayaal fanaaniinta iyo abwaaninta waxaan idin sheegayaa oo maanta idin cadeynaya qarankan jamhuuriyadda Somaliland in ay u halgameen abwaanin iyo fanaaniin ilaa iyo 60kii waxa Somaliland u halgamayay oo gabay iyo hees ku difaacayay oo ugu dagaalamayay fanaan iyo abwaan buuha ilaa Cabdulaahi Qarshe Ali Shugulle Cabdulaahi Sultaan Timcade Cabdi Qays Hadraawi Gaariye يا أحمد سليمان بده ميان ترين كريا ما أبوان يفنان باقرا كانوا هالقمي والدفاعة ما أنت نحدقها قيسكو وحي سميين تاريخ دي اللقو يقاني يوطنية دي قيسني مدي أي سميين أي كل دقاقين وحقرا كان مرول بالدفاعة هاس تايمك محمد سعيد بيك قاضي يا مخراتكاقا قضية Somaliland qaabka ay u difaacayaan heesta Maxamed Saciid Biike qaadayo ayaa makhraatiga suxufigaagi horumarkaaga ma sheego suxufigaagu dawladnimadaada ma sheego suxufigaaga waa lagu soo adeegsadaa suxufigaagu lacag buu qaataa suxufigaagu wadaniyad ma yaqaano waxa mar walba miidiyaha horumarkaaga dawlad wanaagaaga madax banaanidaada jiritaankaaga soo bandhiga waa abwaan iyo fanaan weeye maxaa la inooga baahan yahay markaa waxa la inooga baahan yahay inaynu mujaahidiinta abwaaniinta iyo mujaahidiinta fanaaniinta ee darteen Soomaali loogu wiiqayo ee darteen loo cunsuriyadeeyo ee darteen loo caayo inaynu garab istaagno maanta fanaaniinteenu waa kuwa mowqifkooga cadeeyay
waa kuwa qarankeena u hiiliyay markii la siyaasadeeyay fankii Soomaaliyeed waa kuwa fahmay u hiiliyay maxaa laynooga baahan yahay marka waxa laynooga baahan yahay maanta xidigaha geesku marka ay fan qabsanayaan ayba show qabanayaan hotel bay kireystaan wixii yaraayay iyagu qaadan lahaayeen hotel baa ka qaata 2,000 amba 3,000 dollar bay hotelka ku soo kireynayaan miyay iyagu qaataan waxa inaga walaayihiin dadka inoo halgamayay ilaa iyo isticmaalkii inoo halgamayay in la daryeelay inaga waaye in guriga loo dhisay inaga waaye in loo dhiso gurigii murtida iyo madadaalada maanta haddii tiyaatarkii loo dhiso ma hotel bay kireysan lahaayeen maxamar bay tegi lahaayeen hargeysa loogu iman lahaa casiis bay ku noqon lahaayeen kooga xanuunsada iyaga ayaa daweysanaya kooga ma taqaana gaajaysan iyaga wax siin lahaa tiyaatarkii ha loo dhiso sida ugu dhaqsiyaha badan fanaaniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xidiguhu ugu horeeyaan tiyaatarkii ha loo dhiso waxa ay hotelka ku kireysanayaan marka showga qabtaan iyaga u baahan tiyaatarkii ha loo dhiso shacabka Soomaaliland si ficil ah ku garab istaago abwaaniinteeni qiimaha badnayd ilaahay baan kugu dhaarshay dadkeenu inay dad dulliye yihiin oo abaalaawayaala maanta cabdi aadan xayd cabdi qays guri buu ku xidhan yahay lugaha kama kaco waa nasal mandeelihii Soomaaliland cid alle cid oogi ma jirto hadraawi cid oogi ma jirto burca ayuu ku darxumaysan yahay waa ayaan darro dadkeeni noo soo halgamay abwaaniinteeni iyo fanaaniinteeni inaynu qaabka u dayacno fanaaniinta Soomaaliland meel ay joogaanba halla ururiyo abwaaniinta halla ururiyo haloo sameeyo hidda dhowr haloo sameeyo gurigii fanka iyo suugaanta haloo sameeyo halla gacan qabto halla garab istaago waa kuwa maanta bay noo hili hees kaliya waxa ku xaasidaya ku xaqiraya hees kaliya buu soo saaraa abwaanku fanaankuna uu qaadaa waa lagu kala tagaa baan ku laba cali kuma wada hadasho sida heestan maxay xambaarsan tahay iminka calan yahow la gaafee 3 midab u gaar yahay magac guuliye nabi yaa magac guuliye nabi lagu qoray bal heesta qiimo ay xambaarsan tahay intan goor xunku kacay intan baadi goobka bal ilaahay baan kugu dhaarshay maxay tilmaamaysaa risaalada ay gudbinaysaa waa waaqici dhabta marka ummadda reer Soomaaliland fanaaniinta garab istaagaan walaalayaal waxa xusid mudan oo idin sheegaya barnaamijka saxaafadda dhibaato ay naga haysata ilaahay baan idinku dhaarshay saxaafadda madaxa bannaan runtii waanu ognahay horta dhalinyarteena saxaafadda iyaga dhibaato haysata saxaafadda dhibaatada haysata waxa weeye walla cunsuriyadeeya kuwa reer Soomaaliland haddii aanay Soomaaliya taabacsanayn lama shaqaalaysiiyo saxaafadda koonfurta BBC-da sharti waxa uu haddii suxufiga Soomaaliland aaminsan yahay inaanu ka shaqeyn VOA sharti waxa uu haddii suxufiga Soomaaliland qadiyadda Soomaaliland aaminsan VOA-da warbaahinta VOA-da kama hawlgalo Universal haddii uu qadiyadda Soomaaliland aaminsan yahay suxufigu kama shaqeeyo Kalsan haddii qadiyadda Soomaaliland suxufiga aaminsan yahay kama shaqeeyo dhammaan warbaahinta koonfurta ee dalkeena baabiinaysa suxufiyiinteena laakiin waxa xusid mudan saare ciidla nuur VOA-da iskaga tagto waayo waa cunsuriyiin dalkoodii baa la xaqirayaa waa la bahdilayaa Axmed Saciid Cigana BBC-da iskaga tago Cabdisalaan Herrina sidoo markii horeba qadiyadda Soomaaliland uga tagay BBC-da imkana iskaga tago عوكي الله يرحم الراحمين عوكي والدنيا واتا حسن أحمد عوكي BBC دا وحو قتاقي مركي أركان نعايبك أي دالكي سوقبان عبد السلام هرري BBC دا وحو قتاقي نعايبك أي دالكي سوقبان صحفيين بدن باجرون مواطنين ويقولون نعايبك دالكو قلوقبا وقتاقا مركا وحا كنتياشا مدن حدقاها قيسكا oo runtii sharciga iyo kala dambeynta ku dhaqma oo nidaam dawliya samaystay xukuumaddu ha ku dayto xidigaha geeska waayo xidigaha geesku ma yaqaanaan kana reehebela iyo kana magac leh iyo kana lacag leh sharci bay ku dhaqmaan runtii waa wax lagu daydo weey ururka suxufiyiinta soolchana ha ku daydaan oo wixii qarannimadeena wiiqaya iyaguna meel ha uga soo wada jeestaan ururka suxufiyiinta soolcha
ha ku daydaan waxa tusaale kuugu filan walaalayaal sharciga haddii la dhowri waayo la ixtiraami waayo waxa khilaafka keenaya weey waxa dib u dhaca keenaya weey qof qarankeenii khatar ku ah la xidhayaayo waxa la leeyahay magac buu leeyahay waa nin magac leh qarankeenii buu wiiqayaa amnigii buu wiiqayaa ummadii buu isku diraya waxa la leeyahay waa sheekh horumarkii buu la dagaalamayaa horumarkeenii buu la dagaalamayaa waxa la leeyahay waa xusbi oo gudoomiye xusbiga sharcigu hadduu sareyn waayo dawladna jiri maayo qaranna jiri maayo waxaan idin sheegayaa maanta hadaba saxaafadda madaxa bannaan inay cadow nagu tahay baan idin sheegayaa maanta oo marka mashaariic caalami Soomaaliland ay timaado ay soo urursadaan wax alla waxa Soomaaliland cadow ku ah ayaan idin sheegayaa shacabkaygu way seexdeen cadowgoodii intay xoog ma kala yaqaanaan ayaan daradayna haysata walaalayaal horta waa kan geesigii maxaa ku dhaayay xasan dhuxul laab saalax geesi weeye xasan dhuxul laab saalax xidiga mustacabdi good asxaabta kooxda xidigaha geeska ku xidhan bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maaha ugu oo in badan baan qadooyin halkan xidigaha geeska ku sameeyay noocay doonaan ba ahaadaan amba cid ha lagu sagootiyo ama cid ha lagu soo dhaweeyo tani kuwaasun bay la mid tahay waana sunne in maamulka xidigaha geesku isbedelo anigu waxaan ahaa gudoomiyihii u waqtiga dheeraa xidigaha geesku 4 sanaan hayay 4 sanaan hayay 2 sano ayuu xilkaygu markasta maxay ahayd ansax yahay axmed uliyo muddo sanad ku siman hayay ayaan si gaar ah wada hadalay codsigu isagay ka timid kadibna anoo kooxda ayagayana isla markaana og culayska iyo miisaanka iyo mushkiladda iyo dhibta ay hogaaminta xidigu leeyihiin la jeclaan xidigaha iyo maamulka iyo xubnaha ka qabo marota ku aqbalay waxaan aaminsanahay waqtigan ka maqnaa inaan jirahaan iyo maskaxaan iyo aragtihaan banastay laakiin waxaan aaminsanahay xidigaha geesku waxa weeye iftiin iyo ilays daaray fanka xirfadaada inaad ku qiimaysnaataa waa muhiim xidigaha geesku inay fankii ku qiimaysnaadaan oo lagu ixtiraamo aad iyo aad baan iga farxad igu tahay waxaana soo jeedinayaa in si loo xasuusto loo xuso ay halkaa dadaal ka sii wadaan bini aadamka ilaahay abuuray caqabadaha iyo mushkiladuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha had iyo jeer yimaada waxaa ka muhiimsan caqabada inay timaado wada xalliso inaad cashar ka barato hadday dadku meel wada joogaan waa la isqabanayaa hadday dadku meel joogaan waa la iska hor imanayaa hadday dadku meel joogaan waa la wada hadlayaa waxa la isu hayo waxa ka weyn waxa la isu yahay maxamed saciid cabdi biike wuxuu ka mid yahay xubnihii kooxda xidigaha geeska ku jiray imika maantana wuu fadhiyaa waxa laga yaabaa 10 bilood ka horna in kooxda maxay laga saaray markaanu xeerka eegnay tanaasulaadkaanu eegnay ayuu ku soo noqday xeerka xidigaha geeska ka baawur weyn ama ka awood weyn xeerka xubnaha laftigooda anay haga xubnaha hayaan hadal badan halkan ka yiraahdo maanta uguma talagelin iguma cusbo kulli maamulka xidigaha geesku bal saxaafadda waxa leeyahay inta badan kelmadan doonayeen la buunbuuniyo oo maxay dadka aan doonayeen si direct u sheego waxa dadka muhmal iyo mid kaga jira xidigaha geesku ciideeyeen ana idin leeyimka qora xidigaha geesku waa reer Soomaaliland laab saalax oo inta oran lahaydeen imika idin leeyahay waxayna walaaleeyay dadka Soomaaliyeed afka waanu in xurmeynaa waanu idin xiiseynaa ixtiraam iyo qadarin baanu idin haynaa laakiin meesha aanu ka soo jeedno inaanu noqono hadaa wada qaadanaysaa in xasan dhuxul cunsuri yahay imika idin leeyahay xidigaha geesku waa reer Soomaaliland wassalaamu calaykum geesi dhalay xasan dhuxul laab saalax cunsuri ma tihid waxa tahay wadani dalkiisa iyo dadkiisa jecel oo difaacaya baad ma aha marka aad dantaada garatay ee aad qadiyadaada iyo dawladnimadaada iyo jiritaankaaga aad difaacday lagu dhaawaa cunsuri waa wala weyntu waxay ku sheekeeyaan
Somaliland waxaanu dooranaynaa xidigaha gooska xusbiga xidigaha geeska hala soo sharaxo Somaliland xilka loogu dhiibo hayna maamulaan xidigaha geesku wallahi billah sharciga iyo xeerkay sameysteen cid ka weyni ma jirto nin walba uu qabtaa haddii dalku aanu sharciyo dastuur iyo xeer iyo kala dambeyn ku dhaqmina dal maaha maanta mashaariicda caalamiga dawladdu hirgelinaysa qabaa'il baa laga barayaa sheekh baa ka talinaya siyaasi baa ka talinaya war meesha waynu ku baabaanay hadaba Allah inoo sahlay ha ku daydaan xidigaha geeska ku daydaan xeer iyo sharci iyo dastuur iyo kala dambeyn bilay waayahay maanta waxa la gaaray waqtigii shacbi iyo maxaan ku dhaayay fanaan abwaan suxufi sheekh lagu faani lahaa Somalilander ina tahay waqtigaad ku faani lahayd baa la gaaray Soomaali waa sinjiyad lama diidana laakiin I am Somalilander haddaad aniga Somalilandernimada igu diidayso deegama xoog weynid mana diidi kartid kaalana ma baryayo magacayga Somaliland nabadgeli hadday diidaan daanka ku jiida dariiqa cagta saaraan waayahay haddaba walaalayaal waxa xusid mudan runtii xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxa uu soo dhisay institution garsoorkii buu dhisay ciidankii buu qalabeeyay miisaaniyadii qaranku kor u qaaday oo 4 milyan bay ku dhadhowdahay shaqaalihii buu tayeeyay mashaariic ballaaran buu hay dalka ka hirgeliyay runtii dalka wuxuu u qabtay waxaan la koobi karin laakiin maxaa hadoodilay quruxda iyo dawladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxa hadoodilay saxaafadii madaxa banaaneed bayna hadoodishay oo qarisay milgada iyo sharafta iyo dawladnimada iyo horumarkiinu gaarnay haddaba madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa maadaama waxyaabihii kale oo dhan uu qabtay qodobka saxaafadda inuu meel inaga saaro saxaafadda uu xeer ka soo saaro wixii aan dhexdhexaad ahayn dalka laga madnuuco sida BBC-da VOA-da Universal Kalsan waa ta ugu daran waxaan idin tusayaa walaalayaal waxaan idinka iloobay kuwii wuxuushta ahaa ee dhandhamaraaca ahaa ee bilaadamiirka ahaa ee qadiyadoodii iyo madax banaanidoodii iyo sharaftoodii iibsaday ee xaarmaajo u heesay xidigii geeska iyagana waa laga saaray waa gobonimo wey waayahay waxaan idin tusayaa oon barnaamijkii hore kaga hadlay maalintii dhaweyd fiidiyooga qofkii arkaa sheer gareeyo in Soomaaliya laga sameynayo maalgashi caalami ah Turkigu saldhigga Afrika ugu weyn uu Turkigu ka samaystay Sacuudigu ka samaysanayo Mareykanku ka samaysanayo dawladda soddonka sano isdilaysay ee iscunaysay shacab iyo xukuumad ba iyaga inaga dawlad wanaagsan waayo dhulkiina dawladda gacanta ku haysa wixii amaawiiray fulilaysana cidi kama hadasho saldhigani Turkigu samaystay hadda imika xadhiga laga jarayo warbaahinta ma ka maqasheen cid ka doodaysa miyaad aragteen wali wax hadal haya miyaad aragteen xitaa warbaahintooda wax soo qaadaya imikaynu maqalnay markuu dhamaaday waxyaabaha militariga xitaa saxaafaddu inay ka hadasho waa madnuuc taasi waxay ku cadeynaysaa inay naga dawlad wanaagsan yihiin xagga dawladnimada iyo xeerka iyo kala dambeynta shacab iyo xukuumadba maantana maalgashiga berbera iyo xeerka bangiyada iyo waxa horumarka xukuumaddu inoo soo kordhisay waxa laga sameeyay waad aragtay haddaba ila daawada fiidiyooga yar ila daawada waa saldhiggii military ee Turkigu ka samaystay Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay qalabaynta saldhig military oo ku yeelanaysa Soomaaliya gaar ahaan duleedka magaalada Muqdisho iyadoo saldhigan uu noqonayo kii u horeeyay ee qaaradda Afrika ay ku yeeshaan saldhigan ayaa martigelin doona saraakiil Turki ah oo sida la sheegay dhanka tababarada ka caawinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira dhaqdhaqaaqa al-shabaab sida la ogaaday maamulka Erdogan ayaa muddo fog ka shaqeynaya qorshahan oo la shaacin doono sida ugu dhaqsiyaha badan saldhigga military ayuu Turkigu ku yeelanayaa deegaan xeebeedka Jazeera waxaana halkaas laga hirgelinayaa garoon diyaaradeed oo ay ka soo digi karaan diyaaradaha militariga iyo dhismayaal kala duwan qaramada midoobay ayaa ansixisay oo ogolaatay in Turkigu oo qalaanqal muuqdo oo dhanka militariga ku yeesho dalka Soomaaliya iyadoo ay jirto in maamulka Erdogan uu xiriir qoto dheer la leeyahay dawladda federaalka iyo xitaa maamul goboleedyada dalka
turkiga ayaa bishii abriil ee sanadkan saldhigiisii u horreeyay ee dibadda waxa uu ka furtay dalka aadka u yar balse lacagta hodanka ku ah ee qadar la yiraahdo. saraakiil tababar oo lagu qiyaasay 200 ayaa wajiga koobaad soo gaarayo magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaas oo carbin doono ciidamo Soomaali ah oo gaaraya 10,500 oo askari. turkiga ayaa caawinaad militari iyo mid dhaqaalaha siiyay Soomaaliya in ka badan 5 sano, waxaana uu xiriir joogto ah la lahaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hogaaminayay iyo mid hadda jirtay Xasan Sheekh Maxamuud. shakil aan turkigu waxa uu saameyn xoogan oo dhan walba uu ku leeyahay siyaasadda caalamka, waxaana lagu tilmaamaa dalka xilligan ugu awoodda roon dalalka islaamka. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waraysi siinayay wakaaladda wararka dalka Turkiga ee Anadolu la yiraahdo ayaa ka hadlay taageerada dawladda Turkiga ee siisa shacabka iyo dawladda Soomaaliya. waayahay maxaa loo ogaan waayay maxaad u maqli weyday sad 4 sano socday saldhigan iyo la waday maxaad u maqli weyday warbaahinta maxay u sheegi weyday maanta mar dhamaaday maxaa loo ogaaday taasi waxa cadeynaysaa inaynaan dawlad ahayn inaynaan dawlad ahayn oo iyagu inaga dawlad wanaagsan bay cadeynaysaa. waxa kaloo xusid mudan in 200 oo askari oo duuliye sare ah hadda imka wajiga ugu horeeya ay Muqdisho ka soo tagayaan oo lagu wareejin doono diyaarado duula. xuusho in lagu duqeeyana ka filo wallahi billahi tallaahi xuushay baa leeydi xillimaad baraarugtaayo marka mar ugu dhaco ee mar labaad ugu dhaco ee marka saddexaad ugu dhacdo baan ku baraaruga diyaaradaha maalin dhow Muqdisho la keenayaa sidaa u hadhaynaya. turkiguna wuxuu wadaa midnimada Soomaaliya in lagu soo celiyo si alla sidii la doono. 20,000 oo askari baa loo tababarayaa oo 200 ee sarkaal ee hadda imka Muqdisho imanaya ay ka bilaabayaan. maraykanka ka samaysanaya doqoniimadaada iyo dulinimadaada iyo agagasnimadaada iyo uskagnimadaada ayaa la fadhidaa barbariya Hargeysa intaad qaysha wixii naftaada badbaadin lahaa baad ka soo horjeedsanaysaa. reer hebel baa samaysanaya, hebel baa wata, wasiir hebel baa wata, safiirka maalgashiga keena waxa weeye waa siiraayay inantiisu qabaa. in maanta lagu duqeeyana ka filo wallahi oo billahi oo tallaahi baan ku ri cadawgaagii maanta aad iska eegaysay shalay ku xasuuqay isaga maanta ka awood badan oo ka dawlad wanaagsan adiguna adiga isla hadhay. waxa kaloo xusid mudan walaalayaal, waxa kaloo xusid mudan waxa saldhiga militariga barbara keenay markaas madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan arkay in Turkiga Soomaaliya uu sameeynayo saldhig oo diyaaradaha ciidan siinayo. maanta Soomaaliland inaanay iska qaban karin sababta keentay in saldhiga militari Imaaraadka la siiyo arintaas ah in naftaada lagu badbaadiyo. askarigaaga maanta darayaysan ee 25 sano $20 qaadanayay ee garaamka yar ee qamadiga ah ku noolaa ee muwaadinka ah ee dhiixiisa iyo dhiigiisa aad ku seexanaysay xuduudku joogaa waxa ku dul cadaaday dirayskii baa ku dul cadaaday caruurtiisu 3 waqti ma karsadaan. maanta askartaasi waxay u baahan yihiin in la qalabeeyo, mushahar fiican loo qoro, la garab istaago. adiga ka hortaagan adiga waxa istaahilaan inta hubka iska dhigaan inay faraha ka qaadaan. Itoobiya ha ku cadaabto, amisom ha lagu keeno, Soomaaliya barbare iyo Hargeysa ha qaadato ayaan daradayna haysata. haddaba walaalayaal maanta waxa la gaaray waxaan idin tusayaa xaqiiqdan idin sheegaya xaqiiqda ayaan idin sheegaya. saxaafadda madaxa bannaan mashaariicda Soomaaliya laga fulinayo ma soo qaadato kama doodaan. turkigu markii uu dekada Muqdisho la wareegay cid alla cid hadal haysa miyaad maqashay? saldhigan militariga Soomaaliya laga hirgelinayo wax sheegaya miyaad maqashay? Imaaraadku mashaariicda iyo dhakhaatiirta uu ka fuliyo wax sheegaya miyaad maqashay? shacabka mudaharaadaya miyaad maqashay? cid ka doodaysa miyaad maqashay? maxaa kooga xalaal ka dhigay in la maal gashado, in saldhigyo loo sameeyo, in garoomo loo sameeyo ee adiga kaaga xaaraan ka dhigay? maxaa Jabuuti keeda xalaaleeyay adiga kaaga xaaraan ka dhigay? waa doqoniimadaada iyo jaahilnimadaada iyo cunfinimadaada weey, wax kale maaha. maanta Cabdiraxmaan Ciro waxa uu diiday saldhiga Berbera oo uu ka mudaharaadaya ayuu hortaagay.
muxuu uga mudaharaadi waayey ka muqdishadii dee ka muqdishona ha ka mudaharaada waayahay yaa ka muqdishona ha ka mudaharaado xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa waa la dhaafay wakhtigii suldaan la baryi lahaa sheekh la baryi lahaa siyaasi la baryi lahaa cabdiraxmaan cirro xabsiga ku tuura waa ninka hor taagan maanta mashaariicda iyo waxa dalkiiyo dadka dan u ah waa ninka xusbigii waddani ninka u raray waxa weeye baarlamaanka u raray weeye ee mar walba gar iyo gowrac iyo muran iyo xaalad abuuraya culimada wixii siyaasadda soo faragashada madheeraha lagu guro siyaasiga wixii sharciga ka hor yimaada madheeraha lagu guro shacbiga qabiil wixii sheegta madheeraha lagu guro saxaafiyiinta wixii saldhigga imaaraadka berbera soo qaada madheeraha lagu guro somalilan xukuumadda axmed maxamed maxamuud siiraanyo dhulka waa inu la wareegaa dhulka qabaa'ilku haysto gacanta ha ku dhiga hadda gacanta ha ku dhigo dhibaatada waxa inoo keenayaa waxa weeye dawlad dhulkeedii aan gacanta ku hayn ceel baa la qodayaa waxaa la baryayaa reer baa la baryayaa jilib baa la baryayaa war ceel aanu idiin samayno oo biyo aanu idiin soo saarna baa la leeyahy ree hebel baa qodanaya bay leeyihi waddaa loo samaynayaa waa lala barayaa waxa leey waddadaan idiin samaynay ka guura ree hebel baa samaysanaya baa leeyahy mashruuca wasiirkii habar jeclaa wata amba wasiirkii ciise muuse amba wasiirkii habar yoonis baa wata baa la leeyahy ilaahay bal taynugu dhacday ilaahay baa kugu dhaarshay bal dekedaa 20ka ninka shaqeeyaan ee isku reerka ee berbera haddii la yidhi war somalilan oo dhan ha ka shaqayso ee markabku ku soo xidhmayo 200 markaba ku soo xidhma oo berbera caalami hesho oo laydh aad heshid oo caafimaad heshid oo waxbarasho aad heshid oo wadooyin caalami aad heshid oo hotel aad heshid bal maxay ku diidayaan miyaan dee berbera reer baa haysta berbera xukuumaddu ma leh reer baa leh afartaa maanta dekada berbera ka shaqaysanayaa leh haye waxa loo baayay xukuumaddu waa inay xorayso wixii ay sharciyo xeer u leedahay ariboodada dekadaha wadooyinka dhulka intaan dadku deganan xukuumadda mas'uulka ah maanta waxa loo dhaariyay axmed maxamed maxamuud siiraanyo dalka oo lagu aamino aakhire laga weydiinaya sheekh looma dhaarin cabdiraxmaan cirro looma dhaarin suldaan looma dhaarin qabiil looma dhaarin cidda kitaabka gacanta loo saaray ee aakhirana la weydiinaya adduunyana lagala xisaabtamaya waa axmed maxamed maxamuud siiraanyo axmed maxamed maxamuud siiraaye markaa waa inuu amaawiirtiisa fuliyaa war maxamed xaaji ibraan cigaal kii ka hor imaada amaawiirtiisa xabsiguu ku guri jiro wallaahiya jeelkuu liinta ku cabbi jira axmed maxamed maxamuud siiraaye marree sheekh saxaaq buu ka adkaan kari waaye ma tolkii buu qaban kari waaye axmed maxamed maxamuud siiraanyo isaaq bay somalilan ka dhaqaaqi leedahaye isaaq ma xabsiguu ku uruurin kari waaye riyaale axmed maxamed maxamuud siiraaye waa kii xidhay waa kii xabsiga ku tuuray siiraanyo daahir riyaale siiraanyo xidhay oo cigaal siiraanyo waa kii xidhay ee dhaga weyne xidhay ee xidhay maxaa ku dhaayay muuse biixi xidhay maxamed xaaji ibraan cigaal ay liinta ku dhacbeen yidhaahdeen dalkan wuxuu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay nin ruwaayad meelaha la fadhiista maqaaxiyaha uma baahna buu odhan jiray maxamed xaaji ibraan cigaal allah yarxama raximiin bal ilaahay baan kugu dhaarshay halkaad ku aragtay dawlad baryaysa war bal horumar aanu idiin samaynaa jabuuti daa ma aragtay jabuuti sheekh kama hadli kara amaawiirta dawladda markaasaa laydhaa wiish baa ku soo dumay wiish baa ku soo dumay baa laydhaayoo laydhka iyo biyaha laga jaraa sheekhaasna meel umaraa la waaya siyaasi kama hadli karo shacbi kama hadli karaan dawladdu haddii aan amaawiirteeda iyo sharcigeeda aan looga biqin oo looga dambayn dawlad ma hadde dee maanta waa adiga arkaya soomaaliya waxa mashaariic ka socda wax alla wax ka hadlaiyo wax juuka odhan karaa ma jiro waxaan markaa xukuumadda ugu baaqayaa dhulkana ha la wareegta sida ugu dhaqsiyaha badan leh oo ha kala wareegta dee qabaa'ilkan meel walba ootay ma garatay ama saldhigga berbera iyo maalgashiga dekadda berberana sandulle waa in ay ku howlgelisaa sandulle kii ka imaada amba awal ha noqdo amba habar yoonis ha noqdo amba garxajis ha noqdee wixii ka hor imaada waa inay dhalaalisaa xukuumaddu anigu nin awala baan ahay
waxaan jecelahay inaan xukuumadda wixii wanaagsan ku garab istaago waxaan jecelahay dekadda berbera iyo warshadda sibidhku 40,000 oo reer Somaliland inay ka shaqeeyaan baan jecelahay maanta 40,000 oo dhalinyaro ma ka shaqeysa berbera 20 ninan baa ka shaqeeya oo waliba Ciise Muuse u badan haye Ciise Muuse iyo Muuse Cabdalle iyo in yaro habar yoonisa weeyii waa inta yare berbera degta waxa ka shaqeeya dekadda berbera haye Somaliland lama qabto waa run wixii ka soo baxa waa lagu faa'iideeyo Somaliland oo dhan baa ayaa ku faa'iiday laakiin shaqahaan marka la yiraahdo maanta inama wada gaadhaysa berberi war haynu laynoo ballaadhiyo warshada sibidhka laynoo kiciyo oo 40,000 oo dhalinyaro dadka badaha ku dhamaanaya ka hawl galaan baa la baraya waxa la barayaa war caalamkaanu ka mid noqono halayna ictiraafay jooga ilaahay baa idinku dhaarshay ayaan daradayna haysata maanta waa taa Soomaaliya Sacuudigan inaga waxayna leeyihiin imaaraadka hadii uu berbera ka samaysto Yemen bayna soo duqeynaysa Soomaa Sacuudigii baa ka samaysanayay Soomaaliya saldhigga ugu weyn Afrika Sacuudigii baa maanta mar hadii Turkiga ka samaystay sida Djibouti ayaa la isku eriyayaayo Mareykankuna uu ka samaysanayaa Yurubna way ka samaysanaysaa Ruushkuna uu ka samaysani China uu ka samaysani waxa maanta hadii imaaraadku uu ka samaysto Sacuudi baa iman waxa iman Mareykan baa iman Jarmal baa iman Faransiis baa iman Ingiriis baa iman saldhigga maanta Turkigu ka samaystay 5 dawladood baa Soomaaliya heshiis la gashay imika kow Sacuudiga Mareykan midowga Yurub iyo China ayaa imika heshiis la gashay oo saldhigyo caalamiya ka samaysanaya Muqdisho maxaa marka adiga marka ay leeyihiin imaaraadku haduu berbera imaado waa lagu duqeynayaa Sacuudigii xulfada wadabaaba Soomaaliya ka samaysanaya maxaa loo duqeyn waay bal aqligaaga iyo doqonnimadaada iyo waxaad qaadanaysaa Ilaahay baan kugu dhaarshay jaahilnimada iyo doqonnimadeena haysa waar maanta Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo dalka cid uga la jecel badan ma jirto Faysal Cali Waraabe cid uga la jecel badan ma jirto Muuse Biixi cid uga la jecel badan ma jirto iyaga cayuunteeniya iyaga inoo hogaaminaya dalkan iyo dadkan iyaga matala iyagaana leh cid ka xigta maanta ma jirto marka nin kale waxba iibsadeen iyo waxba cunayaan maxay iibsadeen maanta Puntland waad aragtay ciidankoodii inay baqtiyayaan oo mushaar loo waayay isku deegaan baynu nahay oo isku dhul baynu nahay tiraahan waxa lagu qiyaasaa 3 milyan meelaha wariyaa Muqdisho waadiga arkay iyadoo oo la aqoonsan yahay oo dawlad caalamka oo dhan aqoonsan yihiin oo la maalgeliyo lacag la siinayo ciidan samaysan kari lahayn gaajoonaya adigu maanta ciidan baad samaysatay 25 bishaad mushaharka siisaa miisaaniyadaadu waa 400 milyan kastamyadaadii cashuurahaagi baa shaqeynaya shaqaalihii dawladda maalin kaliya mushahar may waayeen miisaaniyadaadu waa 400 milyan laba meelood oo badh ciidankay ku baxdaa inta kalena shaqaalaha dawladda loo qaybiyaa wadooyin baynu dhisanay Hargeysa iyo Burca iyo Berbere iyo dhulkii baaba'ay waadiga maanta arkaya sida u eeg yihiin caalamka ka mid yihiin mashaariicda ka socota biyo xidhaankii biyo gelintii ugu weynayd baa hadda imika soo socota Hargeysa sanadkan xariga laga jaraya biyo xidhaankii ugu weynaa baa hadda dhawaan xariga laga jaraya wadadii ceeri gaabo oo siyaad baradhis waayay oo aan dawlad inaga caawin oo waxa la waxayna gacan qabtaa aanu jirin baa hadda imika iyadana xariga laga jaraya miyaanay ahayn milgada iyo sharafta inaad ku faanto xusbigii wadanina wuxuu maanta Hargeysa la fadhiyaa wixii la qabanayaba Soomaaliya soo saxeexday wixii la qabanayaba waan ka hor imanaya waxba la cunay waxba la kaneeyay Ilaahay baan kugu dhaarshay miyaanay sharaf dhac kugu ahayn adiga marka nin siyaasi oo inuu dalkan hogaamiyo doonaya uu la soo fadhiista miidiyaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaaliya saxeexday mashaariicda miyaanay fadeexad iyo ceeb kugu ahayn iyo meel ka dhac miyaanay doqonnimo kugu ahayn marka Turkigii saldhig caalamiya ka samaystay inaad adiguna diido oo aad la mowqif noqoto Soomaaliya la mowqif noqoto miyaanay doqonnimo kugu ahayn walaalayaal anigu shacab lama hadlayo shacabkii caadi maaha waa la sixray waa taymka Burca iyo Hargeysa shacabkii laba u qaybsameen in qaad lagu sixray oon caadi ahayn
iyo in suldaan meel ku ootay iyo in siyaasi meel ku ootay iyo in tan iminka la sixraya baabuurta lagu qaaday shacabka Soomaaliland waa shacabka ugu dullisan marka la yiraahdo dawladnimo marka la yiraahdo wallahi bilaatullah sida kale way fiican yihiin waxbay dhistaan horumar bay keeneen way isjecel yihiin waa muwaadiniin laakiin waxa ka dhimatay xaqii dawladda ka dhinteen xaqii dawladda ayay ka dhinteen ilaahay baan kugu dhaarsheeyay xukuumadda maanta jirta heerka ay Soomaaliland gaarsiisay cid gaarsiisay ma jirta iyadoo lagu ictiraafsanayn iyadoo aqoonsi haysan iyadoo cid ku caawinaysa aan jirin iyadoo cadawgaagu badan yahay iyadoo meel walba lagaala dagaalamayo miyay jirtaa maxaa kugu mashquuliyay madaxtooyadan ilaan iyaga loo dhaariyay adigii markaad qaad cuntay ee aad noloshii ka dhacday ee aad shaqaysan weyday ee ma taqaanaa wixii aad baratay aad ummadaadii ku anfici weyday ee aad tahriib ugu abaalgudday ee hooyada aad ka tahriibtay ee dalkaagii aad ka tahriibtay ee dalkaagii aad daayacday beer ma qodanaysid xoolo kama shaqaynaysid wax walba waad ka faanaysaa inta dhiidaa iska xidho oo kaba wistan aad xidhato aad istaawataad leedahay waxba ma qabanayo dalkaagiina Oromaa ka dharagtay iyo Xabashi qaadka Itoobiya ka imaata sanadkii 800 milyan baa kaaga baxa markaad adigii qaybtaadii gabtay iyo wadaninimadaadii aad madaxtooyadii sida u soo eegaysay aad leedahay ree hebel baa la qoray iyo kana la qoray walaalayaal waxa xusid mudan horta saxaafadda madaxa bannaan baa dhibaatada ugu xoogan haysata shacab iyo xukuumad ba meel looga soo wada jeesta saxaafadda heestanaynu ku yaranaysanaynaa fiidooga sheergareeya intaynu ku jirno waar horta inaga dhexdeena waa caadi teen way dhowdahay yaa mid aynu u midowno xasuuqii baarliin ka dhacay kii yuhuudoo kala laynagu sameeyay marka ay Soomaaliya noqoto aynu u midowno markay teena noqotana waa caadi ilaahay baa iskeen baday ul iyo diir baynu nahayo carab iyo labadiisa daan baa isqoonsado sinaba ku kala tagi mayno xabaal mooyaan waxaynu ku kala taginaa ma jirto intaana waa la iskhilaafaya doqonina meel lagu kaftamay moodeed ayay moodaba leeyahay in lagu kala tagay marka ay tacadowga noqotaa loo midoob heestan waxa loo sameeyay mujaahidiinta loo sameeyay fanaaniintii mujaahidiintii abwaaniintii dalkeena waa ku dayacan yihiin Cabdiraxmaan Cirro dalka laga qabto Cabdiraxmaan Cirro meel looga soo wada jeesto habar yoonisna ma matalo garxajisna ma matalo yaa maxaa ku raayay Soomaaliland ma matalo Cabdiraxmaan Cirro Soomaaliland way ka buuxsantay basal buu noqday qarankii wallahi wuu curyaamiyay intii uu baarlamaanka waxaan leenahay wixii madaxda ka dhigay baa la isku haystaa intii naga gaadhana ilaahay haynaga ma taqaanaa haynaga shaafiyo intii Cabdiraxmaan Cirro gaarsiin imikana laga tashado gudoominnimadana ha wareejiyo xamar iska xaadiriyo Cabdiraxmaan Cirro xamar Soomaaliland booskeedu uu ka buuxsamay heesta mujaahidiinta heestan baa loo sameeyay اليوم الموت كوبو برجارة مولا سيو تسجل اليوم الموت كوبو برجارة سهرة عبد الله فلا كل مني
والمجاهدين تي مدحونا صوت صوت مدحونا صوت في قرارة كلنا والمجاهدين تي مدحونا صوت kuwii mawdku qaadiyo mudankay dhaleen marna lagama guure miyayga tartaarana heestu hay micnayse magacoodiyuu lumin midsayga tartaarana heestu hay micnayse magacoodiyuu lumin adna waad mutaysatee mawlihii ku sii mar labaadna ku dhib adna waad mutaysatee mawlihii ku sii mar labaadna ku dhib qadada kuwii noo miciyo balmujaahidiintii madaxweyne soo eeg madaxweyne soo eeg qadada kuwii noo miciyo balmujaahidiintii madaxweyne soo eeg madaxweyne soo eeg qadada kuwii noo miciyo balmujaahidiintii madaxweyne soo eeg madaxweyne soo eeg qadada kuwii noo miciyo balmujaahidiin nacalash wallaahi bilaahi tallaahi sahra axmed cabdilaahi sahra ilays waa siraad weey waa fanaanada kaliya sahra axmed cabdilaahi sahra ilays ee aan Soomaaliland ka bixin ee wadaniyada ah ee waxaan ku yiri heesaheedu ay rasaasta yihiin yaa hargeysay hirtooglay hooygii afwaankaay menaga hodan cabdiraxmaan iyo yurub geeye iyo dadka la nacay ee isnacay menaga wuxuu noqonayna hodan cabdiraxmaan waxa weeye naagtii la yiri 24 saac gudahood agaha dhulka kaga qaad muqdisho naag mursada oo fadxiya kaba yare dhukuro ayaa laabta u garaacday wallahi tiri luga dhulka inay doqon tahay yurub geeyana inaanay damiir lahayn oo dhimatay daahir calasow oo maalin walba sawirkeedo coodcooday Facebook soo dhigi jiro caay jiray ayuu waliba heesu sameeyay muqdisho ka qaad dhiig iyo ustoona male marka heestan kale ila eega heesaheeda ila eega saare heesaheega ila eega dananka saare heesaheeda ila eega tanna waa sahra heestanna farmaajaa loo qaaday heestanna farmaajaa loo qaaday heestaana farmaajaa loo qaaday ويرجدي أبوان يوسف عليه الله لحم وأبوان كوينا ولحن كيف فنان كي جمع ريو
الشقة الأستاذ أحمد ولي إبراهيم فرولي وكتب أصواتهما وفنانة دويني يسار أحمد عبد الله استنى فرماتشا لو قاده فرماتشا والرصاص استنى سارة أحمد عبد الله يلس قادسة حرماتشا لو قاده استنى وقيد dalkayga xilka qaran dartaa xuduudaha ilaasho yaqaan xadgudubkii sharka way xurmeeyaan وقيد dalkayga xilka qaran dartaa xuduudaha ilaasho yaqaan xadgudubkii sharka way xurmeeyaan wada xasuuqana soo gala xuduudkana xasasmeeya nacabe calanku xaqirayaaye xabad bay waraabshaa se wada xasuuqe soo gala xadkeenana xasad weeye nacabe calanku xaqirayaaye xabad bay waraabshaa sida xabashiyo xabadaba ku kala gal markay kala xaqiiqadu waxay tahay somalilan xor weeyaan calankuna xaq weeyaan sahra sahra حقيقة وحي تهي somalilan xor weeyaan calankuna xaq weeyaan somalilan xorowdo xabad way ka gudubtay waa weli xisaabtamin idnayn wixii dhacay ayaa wada xumaantay somalilan xorowdo xabad way ka gudubtay ma weli xisaabtamin xerinayn wixii dhacay ayaa wada xumaantay dalkaygow idinka ku xeeldheer xog ninkii isbidayaba sida loo xanuunjey mar labaad xusuusiya aydhaadhkii mar labaad xasuusiya afweyne xusuusi xoogii dalkaygo idinka ku xeeldheer xog ninkii isbidayaba sida loo xanuunjey mar labaad xusuusiya caleeg xusuusi 8 kii afweyne xabashiyo xabadaba ku talagala markay taala xumaatee xaqiiqadu waxay tahay somalilan xor weeyaan calankuna xaq weeyaan nimco Suleymaan dhawn xarma قالكي أفوينا حسوسي ده كنيسات معتب وقاتل مورغان معتب حسوسا ده معتب كي somalilan xorowdo xabad way ka gudubteen ma wali xisaabtamin xerinayn wixii dhacay ayaa wada xumaantay somalilan xorowdo xabad way ka gudubteen ma wali xisaabtamin xerinayn
wixii dhacay ayaa wada xumaantay xoogii dalkaygow idinka ku xeldheer xogninkiis bidayaba sida loo xanuunjee mar labaad xusuusiya xoogii dalkaygow idinka ku xeldheer xogninkiis bidayaba sida loo xanuunjee mar labaad xusuusiya afweene xusuusi xabashiyo xabadaba ku talagala markay kala xumaatee qofkasta xaqiiqadu waxay tahay somalilan xor weeyaan caalamkuna xaq weeyaan siba xabashiyo xabadaba ku talagala markay kala xumaatee xaqiiqadu waxay tahay somalilan xor weeyaan caalamkuna xaq weeyaan سارة أحمد عبد الله سارة إليس الله يعزك حبشي حبتها كنت لقال مركيكا لا حماتي هاستاسي maxay ku macnaynaysaa qiimaha abwaanka iyo fanaanku uu Soomaaliland ka yahay bay ku cadeynaysaa سارة أحمد عبد الله سارة إليس waa fanaanad wadaniyada hargeysa dhinacna ugama baxdo rasaas bay sii daysaa baan الله يعزك هذه أدبان سلام يا سارة يدمان فنانين تجمهورية الصوماليلاند نمعي ياسين اللهم صل على محمد سعيد بيك مرسل أوف أو أبيه حدقها جيسكا محام كوراي خضر السلمو أو هو يدي حدقها جيسكا حمد كوين عبد هاني عبد الرحمن أوضي اللهم صل على محمد دميان تريكرياه خضر الطاهر سهرة أحمد ميان تريكريا اللهم صل على محمد إيسو شك أحمد سكي ميوها إيسو شك عبد النور ما يا إيسو شك أنك خطرت هاي هستي عيدك قادم محمد مقعي سورت سهرة قال انتهى بقى لقو قرص سهرة يدا ما فنانين تسومالي لان بمكلا دعانة فنان maxaa ku dhaay khadra daahir me iyadu lafteedu maxaa ku dhaayay isoo sheeg nimca degan sahra halgan nimca degan sahra halgan reer xamarku maxay ku nacab yihiin ku caayaan wadaniyaday ku nacab yihiin sahra halgan maxamed saciid bike maxay ku nacab yihiin nimca yaasiin carrale maxay ku nacab yihiin muxuu ahaa isoo sheeg نور طالعي دمان ودا فنانين بيننا ما ترين كرايا جود أهان دمان انت كو أبترسات الصوماليلاند فنان يا أبوان سلام كلي الله بانو الدرياه لسود ويو هذه أدبان دي سلام يا ما انت واحد لقانا وقتي شرفتين يكران مدين يدولن مدين انو دفاع لهين وقتي انو رايحة مركا ميلا انو سكسار لهين باللقانا الدولة بانو نهايين غريسكي بانو كميسان شيري يلحدن بانو اسكو بيرناي شاكدا waa laga gudbay maanta walaasha baa la caayaya hooyada baa la caayaya qabiilkaaga la caayaya dawladnimadaadii baa la caayaya waa lagu faragelinayaa maanta Turkiga saldhigyada iyo mashaariicda Soomaaliya ka hirgeliyay ma ka hadashay adigu Puntland waxa laga hirgelinaya ma ka hadashaa iyagu ma ka hadlaan Kismaayo waxa laga hirgelinaya ma ka hadlaan maxaa keenay berbere iyo hargeysa iyo burca iyo awdal maanta inay ka hadlaan doqoniimadeena weeyaan doqoniimadeena mar labaad baynu la galnay wixii xamar sheegtay haday inagu ixtiraami waayeen dawladnimadeena iyo sharafteena kii caytamana halku jooga loogu tago kii caytama dhalinyarta Soomaaliland dhiig yeesha kii nacaaya halku joogo ugu taga dhalaaliya kii Soomaaliland dhex joogana haday inagu ixtiraami waayeen hala dhalaaliyo meel walba maanta yaa naga awood badan oo naga dhaqaale badan dahabshiil iyaga u baahan uma baahna dahabshiil abaara markay ku dhacaan albaabka ugu horeeyay garaacan waa albaabka dahabshiil way muqdisho haddana sida u caayaan iyo waxay ku hayaan waad aragtay qurun weeyaan dad la soo dhaweysta maaha aad iyo aad baan idin salaamayaa fiidooga sheer gareeya
somalilan ha noolaato 18 may baa soo dhow waa in calanka somalilan brofailka la wada saartaa waa in heesaha wadaniga la soo daayaa anna igu haleeya waxaan soo diyaarinayaa barnaamijyadii aidkii xasuuqii somalilan u geysteen dowladdii xumeyd ee gaalada ahayd ayaan soo diyaarinayaa waxa taariikhda loo xusaa inaad wixii ku soo marayna aad ku waana qaadato wax dambana inaan dee waxa la yidhi mari daga allaha dago mar labaad say daga anaa dagan wixii ku soo maray inaad ku tusaale qaadataa taariikhda loo xusaa oo aanad mar dambe qaldamin oo aan mar dambe lagu khiyaamin oo mar dambe lagu xasuuqin oo adiguna aanad cid dhibaatayn ayaa taariikhda loo xusaa markaa taariikhdii 1988kii dowladdii gaalada ahayd ay nagu xasuuqday ayaan soo diyaarinayaa sabtida ma habeenka sabtidaan soo dayn doonaa barnaamijyadana hadda imika barnaamijyadana magacyaan u samaynayaa barnaamijyada isbuucii 3 habeen baan soo geli doonaa habeen waxaan ka hadli doonaa qaadka habeenna tahriibkaan ka hadli doonaa habeenna qadiyadda iyo difaaca qarannimada somalilan habeenna waxaan ka hadli doonaa horumarka iyo mashaariicda iyo talada waxbarashada iyo maxaan ku dhaayay looga baahan yahay dalkeenna markaa barnaamijyaan soo diyaarin doonaa garabkiinaan u baahanahay aniguna nin meeyi xusbi ku abtirsada ee waxaan ahay nin qaran ku abtirsada somalilan mujaahid baan ahay abtigay janan oogo jeelkii madheeru ku shahiiday ninkii raggii ugu horreeyey jabiyey buu ahaa anigu mujaahid baan ayaan laygu habsaamin anigu mujaahid baana wixii snm nacabe waa cadowgeyga wixii soomaaliya tagaana walaalkay ha ahaadee waa cadowgeyga wixii la mowqif noqda soomaaliya waa cadowgeyga ama ciddu doono ha ahaado marka anigu nin qaran baana nin qabiilna ma yihin nin xusbina ma yihin waayo 3 xusbi qaran waxay dalkan gashadeen ayuunbay ku soo baxayaan ishaa macalina shacabkuna waa bislaaday maanta kuwii ay ka helayaan inay sharaftooda iyo dowladnimadooda iyo madax bannaanideeda difaacaya ee shalayna dhibaatada u galay dee way joogaan markaa wixii ay dalkan iyo dadkan gashay nin waliba wuxuu dalkan iyo dadkan gashaday buu ku soo baxaya kii maamulaana waa ikaygii uun laakiin waa inaan ku qiimeeyaa dee mataqaanaa waxtarkooda iyo geesinimadooda iyo wadaniyadooda waa inaan ku qiimeeyaa taasi waa waajib saaran laakiin ma kala gudubsanayo taasi shacabkay u taallaa laakiin anigu nin qaran baan ahay afka somalilan baa ku hadlaa af qabiilku ma hadlo weligee reer sheekh isxaaqan oo kala saaraya miyaad aragtay anigoo caayaya oo hergarxajis caayaya amba awal caayaya amba habar jecle caayaya amba habar yoonis caayaya ma kala saaro iyaga waan jecelahay inay isku duubnaadaan baan jecelahay waxaan dhaliilaa waa xusbiga wadani waan dhaliilaa haddana waan dhaliilayaa berrina waan dhaliili doonaa siduu wax u wadaa ma fiicna haddii la leeyahay xusbigii baa reer noqday waan xaal siinaya haddii xusbigaasi reer yahay oo uu reer garxajisa yahay amba habar yoonis waan xaal siinaya laakiin hadduu xusbi yahay xaq waxaan u leeyahay inaan dhaliilo cabdiraxmaan cirrana dan reer sheekh saxaaqna ma wado dan beelaha kalena ma wado dan somalilanna ma wado cabdiraxmaan cirro tii aynu ku baabi'i lahayn buu wadaa xaq waxaan u leeyahay wixii dowladnimadeenna iyo qarannimadeenna ka hor imanaya inaan dhaliilo ayaan xaq u leeyahay aad iyo aad baa idiin salaamaya fiidooga sheergareeya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.